haddii saa aad sheegteen ay aad isku mabda ahaydeen al-shabaab suuragal ma tahay qaar badan oo ka mid inay al-shabaab u galaan macquul way u galeen mu galeen waxa jira yar ciidanka ka mid ahaa oo anigu aan weliba mas'uul ahaa weliba ciidanka dhalinyarada aadka ugu yar buu ka mid ahaa markii General Gordon nimi wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay oo baxsada qorigiisii booshkiisii wixiisii oo dhan waa qaatay wuxuu iska soo dhiibay wuxuu isu dhiibay argagixisada al-shabaab buu isku dhiibay al-shabaab hadduu isku dhiibana waxa laga wareystay idaacadda ugu weyn ee Daarufurqaan uu ku hadlay hadda codkiisa media waa yaala isagoo la wareysanayo haye waa yaala hadda deel raadiyo waa la helaya dadkana waa wada dhageystay muxuu u galay al-shabaab buu tii muxuu u galay sabab wuxuu u galay muxuu ahaayey markiisii hore muxuu ahaayey horta waa nin askariga oo lasoo tababaray markiisii hore baa laga yaabaa in ay ku soo darsadeen asalaamu calaykum ikhyaaray kulanti wanaagsan halkani waa ha noolaato aniguna waa yaalla xuseen cabdi si aad la socoteen waxaan sii daynaynay barnaamijyo taxana ah oo waraysiyaal oo aan ka qaadaynay qaar ka mid ah askartii iyo saraakiishii ka midka ahaa ciidamadii soomaalida ee loo diray waddanka Eritrea kuwaas oo nala wadaagayay waxyaabo badan oo macluumaad ah oo markii ugu horreysay loo soo bandhigay dadka Soomaalida askartan aan la kulmayo iyaga dalbaday inaan waraysiga ka qaado waana niman qaangaar ah oo raba inay dadka la wadaagaan waxyaabihii ay u soo joogeen iyo nolosha ay soo mareen haddaba qaybtan oo ah qaybtii afraad barnaamijyadii taxanaha aan duubaynay waxaa marti noogu ah Jaabir Cabdi Xakiim Muuse oo ka mid ahaa askartaasi Jaabir soo dhawow waxaan ku bilaabaynaa adigu dufcadeed ahayd seed ku tagtay Eritrea bal iga sheekee waa dhowahay waxaan ku tagay waxaan ahaa ciidamadii ugu horreeyay oo tay dufcaddii waxaan ahaa 1500 waxaana tagay 2019 bishii 10aad diyaaradii ugu horreeyana waa ka mid ahaa marka waqtigaas aad tagtay waqtigaas ayaan tagay waaye adigu maxaa lagu tababaray marka Jaabiro aniga waxa lay tababaray horta ciidamada dhammaantood tababaro kala duwan baa la qaatay anigu kaaniga ahaantayda tababarkan qaatay waxa ka mid ah ciidamada badda tababarka badda waa qaatay kan madaafiicda goobta waa qaatay iyo casharo kale oo maskaxiyana oo daraasadaysan ku baxay aan qaatay waa ka mid ah waaye marka takhasuskaaga gaar ahaan aad u xil saarnayd iyo darajaad gaartay maxay ahayd sidii taa aan ku shaqeynaya waxay ahayd muxuu ahaayey madaafiicda goobta darajo maxaa darajo gaartay wax darajo oo dawladdu markaa waa laga qoray laakiin wax ay dawladdu isiimaysan jirin waaye waxaan rabaa marka waraysigaagan inaad macluumaad naga siiso markaad dalka kusoo noqotaan howlihii aad qaban lahaydeen iyo qaabka ciidanku u samaysnaa ee aad ugu howlgeli lahaydeen gudaha waddanka horta ciidanku muxuu ahaayey ciidan wuxuu ahaa tayaysan oo tababaro wanaagsan iyo system wanaagsan lagu soo tababaray la'annahu ciidanka waxaa ku dhex jiray dad baa mas-uuliyada u sareeya waxay ahaayeen dad wata ajandayaal iyo nidaam gaar ah because waxaa la bilaabay ciidanka dhexdiisa in laga sameeyo laamo gaara oo ciidankii ka tirsan oo siyaabo duwan oo ciidanka ka duwan lagula dhaqmo in loo samaysto oo sidee ah kow ciidan intelligence ah oo ciidanka 5,000 qayb ka mid ah oo intelligence ah oo waxay gaarayaan 75 qofood baa jiray oo wardoonka oo sirdoon ah waaye sirdoonka oo la rabay in ay dalka muxuu ahaayey wax ugu taraan markii ay tagaan heer waxa la bilaabay in ciidanka ay ka howlgalaan ciidankii walaalooda ahaa la dhaxmoonayay la dhibaatoonayay la rafaanayay daawo la'aanta xaaladii adkeyd in ay iyagii muxuu ahaayey ka ribood qaadaan ama ay u gudbiyaan mas-uulada markaa sameeyey raggaana u xulay inay casharkaa bartaan waxayna ugu xuleen dadkaas waxay ahaayeen dad ay ku soo xusheen siyaabo gaar ah kow dadka intelligencega bartay oo lagu soo xulay waxa ka mid ahaa kow deegaan ahaan kow waxa ka mid ahaa dadka in ay ka soo jeedaan qabiilada mataqaanaa aadka looga tira badan yahay labo in uu qofkaasi yahay dad family iska xoogaa saboola aana waxba haysan muhiimadda la rabo waxa ahayd in raggaa marka si la rabo loogu adeegto cadowna looga dhigo ciidanka walaalahooda oo dhaxanta la jiifa waaye qaybtaas waa qaybta koobaad waa qaybta koowaad oo ku shaqeynaya nidaamka sirdoonnimada waaye qayb labaad baa jirtay iyaguna oo ahaa MB waa dad muxuu ahaayey wax waardiyeeya dadka wax waardiyeynaya marka waxa lagu soo xulay iyagana dad aad u feer waaweyn dad murqaaniyiin oo aad u feer waaweyn oo la soo xulay bay ahaayeen laguna soo xulay in ciidanka lagu jirdilo lagu dhibaateeyo tacaddu nafsi lagu geysto marxalado badan qaar waxa jira ciidanka ka mid ah nimanka MB-da ay tacaddi nafsiga u geysteen ee garaacayeen ku naf waayay baa jira Jaabiro waxa la leeyahay meesha nafaqa darra ka jirtay oo idinka muuqatay ma dad nafaqa heli kara jiray oo murqalaha dadkaas iyaga muxuu ahaayey waa dad si gaar ah loo soo xushay oo meelaha ciidanku degan yihiin boostashannada ciidanku degan yihiin laga raray oo degan meel gaar ah gaar ahaan mararka qaar ciidanka
caadiga oo raggaa laga dhex xulay garaamaadka ilaahayeen la siin jiray oo loo leexin jiray si xoog u yeeshaan raggaana ee gacan bira muxuu ahaye wixii la rabo ay looga samaysto waa qaybta labaad marka waa qaybta labaad oo MBda iyaga oo welibana muxuu ahaye loo fasixi jiray wax alaale iyo waxay rabaan waxyaalaha ciidanka mamnuuca ka iyaga free buu ahaye waa loo fasixi jiray heer waxa kamid ahaa muxuu ahaye qofku xaalad adag baa lagu jiraa dhar la'aan baa haysa kaba la'aan baa haysa in uu bixi karo qofkaasi uu aadi karo magaalooyinka gobolada u dhow uu kasoo adeegan karo wax markaa isaga u baahan uu nafsadiisa uga baahan yahay meesha ciidanka kalena ay dhibaataysan yihiin ee baahan yihiin isaguna uu ka qurxoon yahay oo ciidankiina uu ku hayo tacaddu nafs qaybta saddexaad marka qaybta saddexaadna waxa hayeen ciidan la yidhaahdo JJ ciidanka magaca loo bixiyey JJ waa ciidan iyaguna loo soo tababaray madax jabis maxaa ka wadaa waa ciidan loo soo tababaray gacanta qarsoon ee dadka lagu laynayo dadka lagu dilo gacanta qarsoon oo dadka lagu dilo waa dad dhar cada oo hubaysan oo JJ buu magacooda ay ku hawlgalayeen JJ buu ahaa waxaana dadka muxuu hayay xirfad gaara loo siiyey in ay gacanta qarsoon ay tahay dadka markaa loo baahan yahay in lagu laayo wadanka gudihiisa ku jira kow waxaa loo adeegsanayay ciidanka qayb ka mida dhexdiisa inay raggaasi laayaan labo siyaasiyiinta mas-uuliyiinta dalka u shaqaynaya ee kala duwan laamaha kala duwan ka shaqaynaya in loo adeegsado lagu laayo baa ciidankaa loo sameeyey JJ-da la yidhaahdo waana ciidan ka mid oo taqaana waa ciidan anaga naga mid ah aan naqaano adiga oo kula mida oo garanaya hebel u garanaya markaa u dhaqaaqdo waxa uu armiga small armiga uu gacanta ku haysto buu awood wuxuu u leeyahay inuu madaxa kaaga qabto aadna ka hadli karin heerkaana waxaa amar buuxa u siiyey waa saraakiisha markaa u sarreysay nimankaana soo xushay qorshihiina marka waddanka marka kusoo laabataan saad rabteen inaad u howlgashaan qorshaha iyaga waddanka markaan kusoo laabanno waxayd qorshaha inaan howlgalno sidii naloo tababaray iyo nidaamkii loo tababaray inna la kaga faa'iidaysto waxaa suurto gelin waaye hor istaagay ninkii mas-uulka u ahaa in aanu litaraya aadno isku xoreeyey iyo cabsaaqa litaraya la oranayay baa ka dambeeyey inuu muxuu ahaye ciidankii ka sameeyo laamaha hadda kuu sheegayo ka dhex sameeyo dalkii markii la imaado uu nidaamkii litaraya ka jiray inuu Soomaaliya ka keeno inuu ku socodsiiyo yacni qaab dictator in lagu socodsiiyo Soomaaliya nidaamkii inuu ku soo tababaray systemka xaga ka jira in la keeno xeryaha Soomaaliya ciidanka lagu abuyo oo la keeno tacaddi nafsigii madax banaani la'aantii yacni dad macnihii la gumaysanayo maskaxda loo gumaysanayo isagoo mas-uul Soomaaliyeeda oo askari Soomaaliyeeda oo dalkiisa iyo dadkiisa u dhaartay oo rabo inuu wax u qabto oo la rabo in maskaxda laga dulaysto marka nidaamka Eritrea ka jira in waddanka la keeno nidaamka Eritrea ka jira waddanka in lagu dhaqmo waddankana waxa la rabay markii lagu soo noqdo ciidankan ku soo noqdaan in muxuu ahaye gacan bira inay ku qabtaan waxna la laayo wax yar oo nadiif ah ajandaha hadal haynta ugu badan uu oran jiray waxay ahayd dalkii markaa tagtaan waxaan rabaa inay ciidu dhaqaaqdo kow uu ka wado ciidu inay dhaqaaqdo min raas casaar min raas komboni in gacan lagu qabto Soomaalida dhan oo jirta in la laayo oo laga soo reebo in yar oo kooban oo awaamiirta ciidankeena iyo mas'uuliyiinteena ka yimid dalka Eritrea qaadanaysa in la helo bas idinka markii waxaas dhan la idin dhigayay wadaniyada la idinku beeray waa jecleydeen waddankiidu waddankayga waa jecleen nin walba waa ka goonayd inuu waddankiisa dalkiisa iyo dadkiisa si muxuu ahaye wanaagsan wax ugu qabto aqoonta aan baranay iyo cilmiyada baranay oo kala duwan nin walba wuxuu diyaar u ahaa inuu wax ugu qabto uguna faa'iideeyo booska markaa kaga habboon inuu kaga shaqeeyo waddanka marka maxaa la idinku sheegay waddanka waayo dalka Soomaaliya inaan ugu shaqeyno dalka Soomaaliya yaa ah markaa yaad ilaalinaysaan yaasa ka ilaalinaysaan yaad dilaysaan yaasa difaacaysaan lidka cadowga koowaad wuxuu nooga dhigay waxa weeye mas-uuliyiinta dalka Soomaaliyeed ka shaqeynaya laamaha kala duwan ka shaqeynaya oo ka soo horjeeda dowladda markaa jirtay waxay ahayd xukuumaddii nabadii nolol farmaajo in xukuumadda kow cadowga iyaga taargetkayga koowaad wuxuu ahaa 3 dadka dowladda ka soo horjeeda in aan layno labo in muxuu ahaayey mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda ka shaqeynaya inay iyagana la laayo labo in ajaaniibta dalka ku jira dalka Soomaaliya ku jirta in laga saaro marka in mucaaradka cidda ka soo horjeeda dowladda la dilo waa la gartay dowladda gudaheeda ku jira ayaa la dili karay in la dilo wixii awaamiirta ciidanka iyaga halkaa ku soo tababartay oo laga keenay dad baa waxay wataan ciidanka inay u adeegsadaan ahdaaf u gaara ama arrimo iyaga u gaara raba inay ciidanka kaga faa'iidaystaan ciidankii oo la rabay sidii la rabo in looga faa'iidaysto baa waxaa jiray dadka mas-uulada markaa u sarreeya danahooda gaarka ah in ay ciidanka u adeegsadaan kow in ay dalka ku buquuniyaan ee ku qabtaan muxuu ahaye dadkii markaa iyaga lidka ku ah
ama dalka meesha ay u wadaan dadka ka diidi kara ama ka dhigdhigi kara in la laayo baa sistemyada kala duwan oo naloo adeegsanahaa processyadaasaa ka mid a waay shabaabka laakiin marnaba shabaabka iyaga naftigooda ciidanka muxuu ahaye muhiimadda u daarteen horta waxay dalka iyo dadka inay anfacaan kow shabaab in lala dagaalamo way jirtay oo ciidanku ay muxuu ahaye waxyaalahay u dhaarteen bay ka mid tahay laakiin iyadoo halkaa la gaarinba cadow waxaa looga dhigayba muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka la jooga baa cadow looga dhigayba markii shabaabka laga imaado markii shabaabka laga imaado kuwanaa ka horeeya shabaabku waa fudud yahay baa la yiri al-shabaab waa fudud tahay sida ugu fudud weeye waa cadowga ugu fudud badeen cadowga ugu daran waxa weeye cadowga inaga nagu dhex nool kow waa mas-uuliyiinta markaa dowladda u shaqaynaya ee taagan ee boosaska muhiimka u taagan waay adiga intii aad joogtay meesha maxaa dhibaato kaa soo maray meesha intii aan joogay dhibaatooyin badan baa iga soo maray dadka badan oo muxuu ahaye la ataagsanaya baan ka mid ahaa waxaa jirtay muxuu ahaye 3 mar in hoolka ama teendhada aan deganaa in layga soo baxo lay soo saaro iyagoo oo ka dameeyeen dadkii aan kuu sheegay taranjansiga ahaa oo dadka rabay dadka muxuu ahaye inay u jaajuusaan dadka maxaa lagaa jaajuusaya marka waxaa laga jaajuusayaa ama rabaa nidaamka sistemyada la keenay waxaan ahaa raggii diidanaa oo lahaa process socon kara ma aha askari soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliyeed oo xuquuq leh in la dulaysto oo la jir dilo askarigu wuxuu leeyahay waa wada naqaanaa xeer ciqaabeedka dhishbiniinka buugta waxa askariga ka mamnuuca waxa u fasaxan wax walba waa garanayna marka muhiimadda ugu weyn baa waxay tahay sharcigii iyo nidaamkii u degsanaa xoogga dalka ama ciidamada dastuurka u degsanaa wax ka duwan in lala yimaado anu marka waxaan ka soo horjeeday waxaa ka duwan in lala imaado dadkii diidaya baan ka mid ahaa arrimaha lagu ataagsanaya taasaa ka mid ahay idinku waxaa rabteen sida laydin tababarayay in waddanka nidaam askari uu galo farmaajo weligii uu madaxweyne ahaado waddanka xukumo isagana dacad u ahataan horta muxuu ahayey ahdaafta ugu badan oo laga dhaadhiciyey waxay ahayd xukuumaddii nabad iyo nolol ciidanka waa laga dhaadhiciyey waxaa jiray mararka qaar aan tacliin la aadayn aroortii waxaan ka eenaa 10 iyo barka meel bannaan aan tagaynaa qorraxda noo soo baxaysa shir oo laga shirayo sidii Soomaaliya gacan loogu qaban lahaa macnihii ma aha haddii la oran lahaa Soomaaliya sidii wax looga bedeli lahaa ma ahayn sidii Soomaaliya gacan loogu qaban lahaa dadka jooga sidii barna loo leyn lahaa barna muxuu ahayey inta soo hadhana inaga waa mirteena ay qaadaso yacni aan noqono halkaa muxuu ahayey dawlad isku xiran in la noqdo macnihii dadka wata processka watana waxay dad gaara oo ahdaaf gaara iyo dana gaara iyo sistema gaara wata shakhsiyadooda iyo arrimaha gaarka ay wataan askariga Eritrea jooga ee ka arki waayaan waxay ku eedeynayeen waa qabiili waa propagandiste waa nidaam soo noocaasa hal xiro heer waxa jidhay la isgeenayay xabsiyo underground waa dadkii ay ka waayeen ahdaaftooda iyo danahooda gaarka ka soo horjeesta in loo bedelo inay yihiin dad ciidanka lid ku ah ciidankana intii la hor istaajiyo loogu fasiro in ay yihiin hadafka guud ee ciidanka dhaxay ragga caqabada ku ah waay arinta markay dhimaado ajnabiga hay'adaha UN-ka Amazon haday noqoto ama ATMIS Mareykanka Ingiriiska cadaanka wadanka jooga madowga Afrikaanka kulli colal idinka dhigay col baan loo ka dhigay inta ajaanib dalka joogto col baan loo ka dhigay in ay dalka lid ku yihiin ma huma dalkeena Soomaaliya waa dal qaniya waxaana oo baadroolkii baa ku jira macdantii baa ku jirta waxaana oo lin maray sidii naloo soo tababaray haddii aan ugu shaqeynaa uguna hawlgelinahay dalka dad wax ka bedeli kara waxna kusoo kordhin karna waana laakiin ciidankii waa ciidan la kala dilay oo loo kala dilay dad waxaa jira ahdaafta iyo arrimaha gaarka dadka wata dad qaatay iyo dad diiday dadkii markaa diiday shaabad gaara ayaa lagu dhuftay oo waxaa laga dhigay dad taarget ah dowladda anfacayn see rabteen markii in loola dagaalamo ciidamada ajnabiga ama dadka kale ajnabiga ee waddanka jooga see rabteen in loola dagaalamo taa waxaan ka oranayaa iyada markii aan dalka kusoo noqono ajaanibta laga saarayo in aanu ka helno horta muhiimadda weyn waxay in aanu amar buuxa anagu aan ka qaadano wasaarad gaashaandhigga hoos inaan hoos tagno horta amarkaygu ma wahayn toos in aanu madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in aanu amar ka qaadano aan cid kale amar ka qaadan wasaarad gaashaandhig aan hoos tagayn sarkaal kale oo ciidamada ay xoogga dalka ugu sareeyo xukuma ama taliyaha lugta ha inaan hoos tagayn kaliya awaamirta uu soo bixiyo madaxweynuhu dadka kaliya ee qaadan kara inaan nahay dadkii la yiraahdo laay in aan layno markii aad askari Soomaaliyeed aad tahay dadka awaardiyeen sano ee dad Soomaaliyeed lagu yiraahdo dadka lay waa in ay haysaa processka aad ku laynayso ama dambiga ay geystaan waa in ay haysaa ciidamada ajnabiga marka seed ma la dagaalami lahaydeen haddii ay waddanka bixi diidaan mise dowladda ka saari lahayd ha dowladda waxay inay amar ku baaqdo ay ka saadho haddii kale in anagu aanu muxuu ahaye aanu galno wixii aan xoog ku qabsano wixii hub iyo saanad iyo system haystaan aan kala wareegno aan gacan biro ku qabsano
marka ajnabigana waa dili lahayd waxay ajnabida aragtaan wixii ajaanib aanu aragno wixii hub haystaan wixii system haystaan oo dhan gacan biraan kaga qaban lahayn iyagana muxuu ahaayey waa la leyn lahaa bartoodaasa laga takhalusi lahaa niyadeyda ka aydan intaa arrintaasi muxuu ahaayey niyad bay naga heli laakiin sistamyadii ugu weynaa aan rabnay in aanu dalka wax kaga bedelno dad baa ahdaaf gaara iyo arrimo gaara watay oo ciidanka ku kala dilaya ku kala shubayay ama arrimo qabiili ha noqoto ama arrimo siyaasadeed ha noqoto adigu arrimo badan baa jiray oo ciidanka lagu kala dilay marka Jaabir ma la dhihi karaa ajandihii iyo qorshihii ciidankaas loo dhisay doorashadii uu farmaajo soo noqon waayaa dhantaashay maahane waa hawshan oo qabsan lahaydeen horta halkaa iyada waxaan oranayaa maxay ahayd ciidankaas horta ciidan wuxuu ahaa wadaniyiina oo ka dhisan laakiin ciidanka dalkiisa iyo dadkiisa waa jeclaa waxaa nacsiiyey ciidanka oo kala dilay mas-uulkii markaa ugu sarreeyey ee haystay ciidanka oo u madax bannaanaa baa kala dilay oo ciidanka wuxuu ka dilay in uu ka dhaadhiciyo arrimihiisa isaga tiisa keliya waa kaas waa cabsaaq xaaji mas-uulkii markaas cabsaaq asmara ayaa la yidhahdaa muxuu gaaroo watay marka uu ka dhaadhicinay waxa weeye arrinta isaga arrimaha gaarka uu isagu leeyahay inuu nagu socodsiiyo maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa muwaadin soomaaliyeed ama mas-uul soomaaliyeed oo dalka wax u taraya buu kuleeyahay dalka ayuu lid ku yahay waa nin dalka caqabad ku ah waa in la qabtaa marka hadhow dalka la tago dad uu magacyadooda noo sheegay baa jira oo yidhi hebel iyo hebel iyo hebel haddii dalka la tago waa in muxuu ahay cabdiraxmaan cabdishakuur baa ka mid ahaa dadka uu yidhi dalka haddii la tago muxuu ahaye dadka waa in la laayaa cabdiraxmaan cabdishakuur baa ka mid ahaa hataa maalintu hadalka lahaa waxaa jiray dad uu cabdiraxmaan cabdishakuur mas-uulkaas oo muxuu ahaayey waalidiin ugu beegnaa oo meesha fadhiya oo ka gadooday oo xanaaqay baa jira oo maxay sameeyeen oo wuxuu yidhahdeen muxuu ahaye annaga adeerkan baa nula adeegsanaya ciidanka halkaa dhexdiis ka kacay baa jira anugu xaadir ahaan aan taagnaa mas-uulo oo dadka u taargadeeyey baa jira oo gacan bira in lagu qabto marka isaga idiin sheegi jira waxa samayn doontaan iyo waxa waajibkiina muhiimadda ugu weyn aan la yaabi jirnay waxay ahayd ninka cabsaaq asmare la yidhahdo nin aan aad uga yaabnay buu ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dowladda madaxweynaha maahane inta ka hooseysa waxyaala inay ogeyn buu isagu intuu og yahay noo sheegi jiray waxyaala aan 3 bilood 4 bilood 5 bilood kabacdi dhacaya buu nala wadaagi jiray ama sanad kabacdi wax dhacaya buu noo soo sheegi jiray ninkaas inuu run sheegay waxaan ku ogaanay sanad kabacdi oo taariikhdu noo sheegay markii la gaaro wixii uu noo sheegay oo taagan baanu aragnaa oo dhacay waxyaala aan kala yaabi jirnay waxaas ahay taa marka maxay ku abuuri jirtay taas waxaan ugu abuuri jirnay ninkan inuu yahay nin awood leh oo xarga badan inuu yahay nin awood leh oo xarga badan waxyaalo badanna ka suurtoodo dad u hanjabay baa jirta oo yiri meel aad tagtaan bay iga badbaadimaysaan muxuu sameynaya markaa wuxuu yiri muxuu ahaye tanna iga badbaadimaysaan god baa idinku gelinaya soomaaliya haddaad tagtaan iga badbaadimaysaan madaxa meel aan idinku dhufan maayo meesaad tagtaan madaxa meel aan idinku dhufan dadkii ka soo horjeesta hadafkan aa wato maalintii ugu dambeysay aan diyaaradda soo korinay soo bixin hadalkii uu yiri waxay ahayd anigu cid aan baryayo ma jirto tayda haddii uusa oran lahaa tan dalka iyo dadka iyo diinta u dhaarateen waxaa la rabaa in aad nin walba casharka uu soo bartay ama cilmiga kala duwan uu soo bartay sidii la rabay waa inuu ugu shaqeeya meesha loo oran lahaa wuxuu yidhi maalintii ugu dambeysay shirka ugu dambeeyo noo qabto oo diyaaradaha lagu soo raacay hadalku yidhi waxa ka mid ahaa waa fadhiyay anigu waa taagnaa waxyaalaha aad maskaxdeeda uga dhex guxaya marka aan la yaabo bayd ninkii tayda ama hadafka anigu wato ciidanka magaca guud ku dhaqaaqi jira wax ilaalo qaran nin ilaalo qarana oo halanka fadhiya hadafka anigu nii keenay aan wato ninkii socodsiin waaya baa igu wallaahi wax Soomaaliya inaga badbaadi maayo Eritrea inaga badbaadi maayo ninka isqariyay oo ciidan ku dhex jira oo hadafka anigu wato ka soo horjeestana iga badbaadi maayo Soomaaliya hadii la tago waa idin hanjabay waa noo hanjabay koos marka aragnay nin waxyaalo badan muxuu ahay inuu u yahay hadafka uu watay marka haddii dowladdii uu rabay hawsha waday ee uu ka midka ahaa meesha ay dhacday oo dowladda xasan sheekh timid weli rajo qabaa in ciidankan ay noqdaan ciidan mar dambe hadduu farmaajo soo noqdo la adeegsado macquul hataa heer wuxuu yidhi haddii muxuu ahaayey in broseskaas uu socon waayo inta yaroo oo broseska qadiyadeeda ila aaminsan baa ila socodsiinaysa ciidanka inta ku dhex jira dadka laamaha oo ciidanka dhex sameeyey markii laga imaado dad uu mas-uulo gaara uu ka dhigtay baa jira oo isagoo ereyga uu dhaho erey dul saari karin ninkii waxa uu dhaho hadafka uu dhaho oo guracan ka soo horjeesta uu dhaho waxa kane wax soconaya ma aha wuxuu arkayay nin ku ah isaga lid ama wuu xirayey ama muxuu ahaye jirdil iyo wax lagu geysanayay xaalada bini'aadanimada ka baxsan tacaddi nafsiyeed baa loo geysanayay waddanka markay kusoo noqoteen adiga maxaa la kulantay waalidka ma aragti markii ugu horreysay goor waa kugu horreysay markii aan kusoo noqonnay muxuu ahaayey de horta ciidanku ciidan wuxuu ahaa ka yimi ciidan Soomaaliyeed oo ka yimi
gobollo kala duwan maamulo kala duwan ka yimi baa jiray markii aan saa u nimi oo nala keenay xerooyinka muqdisho nala keenay dadka muxuu ahaayey gobolka banaadir ka soo jeeda ama u dhashay dadkooda bay wacdeen oo u keenayey dad rafaadsan bay ahayn wax markaa u baahdana ama sistamyo oo markaa gawaari ugu soo qaadaya u keenayay dadka ka yimi gobollada ama meelaha kala duwanna dee dad meesha kama garanayn oo dad waxay ahaayeen dee dalkooda dadkooda inay wax u qabtaan markii hore u baxay oo aanan ku bixin dee deegaan baan difaacayna marka meesha aan nimi aan ku joognay dadka dadkoodii baa markaa ay la xiriireen u yimi annaguna maadaama aanu dee maamullo kala duwan iyo gobollo kala duwan aanu ka kala nimi aanu sugayna fasaxyo badan iyo sistamyo badan in la siiyo waxa markaa uu isagu nagu yiri in muxuu ahaayey wax fasaxa uusan jirin oo muxuu ahaayey in muxuu ahaayey ninkii awaamiirta uu soo bixiyo hadday khaldan yihiin in la qaato ninkii qaadan waayana inuu jilac u gelinayo dad jilac inuu gelinayo waa markaa soo noqoteen ha waxaa jiray xerada la yidhaha generaal gordon aad baa uga naxay yar ciidan ka mid ahaa buu ahaa magaciisa hadda ma garan karo dhowr dhallinyaraa bay ahaayeen alaabyo isgaarsiin mobile ay dirsadeen waalidiinta u dirsadeen bay rabeen in loo keeno xerada generaal gordon loogu soo geliyo amar isagu wuxuu ku soo bixiyey dad gaaro isagu u fasaxay maaha inta kale inaan la siin nimanka iyagaa markii ay dhacday si kasta ugu soo gashay xerada iyo mobiladii ugu imaadeen waxaa jiray in loo geysto tacadigii lagu hayay eritrea in loogu geysto generaal gordon xerada dhexdeeda in loogu geysto oo la jirdilo lagu jirdilo generaal gordon dhexdeeda xerada soomaaliya xerooyin ka mid ah xerooyinka ugu faca weyn ka mid ah in lagu jirdilo jirdilkii eritrea ka jira weli soomaaliya lagu sameeyey markaan diyaaradda saa uga soo degnay aanu joognay 3 beri ama 2 jir in lagu jirdilo ciidanka xaaladdan yar askari oo ciidan ka mid ah baa wuxuu la wadaagay odowaa generaal odowaa la wadaagay odowaa markaa muxuu ahaayey arrintaa wax ka bedelay oo yidhi anigaa wax ka bedelaya askari xaq uma laha in jirdil ama system ama nidaam in lagula dhaqmo xaq wuxuu u leeyahay wixii nidaama oo ciqaabaada oo xeerka muxuu ahaayey xeerka ciqaabeedka ciidannimadu uu sheegayo dastuurka u yaal ciidannimada adigu goormaa waalidkaa la kulantay markii ugu horreysay anigu markii ugu horreysay aan waalidkii la kulmay markii aan halkaa joogay fasaxyo waan la siinayaa baa la yidhi fasaxyo waxaa jiray 5 beri laysa siinayo oo maxay aheeday kadib lasoo laabanayo 5 beri oo laysiiyey markaan arkay in aysan muxuu ahaayey meeshan dad ahdaaf gaara wata inay jiraan baan waxaan go'aansaday in aan waalidiintay aan soo tago ama maamulka ama dowladda marka aan ka soo jeedo hooyada waxay ku nooshahay magaalada boosaaso in aan muqdisho ka soo tago aan booso imaado aan waalidiintay la kulmo dibna umaan noqon because waa jireen waa layla soo xiriiray waa laysoo wacay xataa waxaan ka mid ahaa dadkii markii ciidamada qaar muxuu ahaayey mushaharaadka lacagaa laga goostay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii loo daayey oo weli magaaladooda iyo ajandaha laga sugayay inay soo laabtaan dad waxaa jira markay dadka imaadeen dad lacagii islaamikiiba laga goostay anigu waxaa dadkii loo daayey oo laga sugayay inay soo laabtaan maxaa u noqon weyse markaa waxaan u noqon waayey ahdaaf gaara waa meesha olay sidii la rabay oo ciidanka la rabay in ugu shaqeeyaan ma aysan oolin because waxaa ka dareemaysaa ciidan dhan oo tababaran oo dal dibadda kusoo tababartay oo nooc walba leh oo tababarkoodu tayeysan yahay maanta waxaan oran karaa ciidanka dalka eritrea ka yimi ciidan ku dhigiisa oo ku tababara ma jiro aysan ka ahayn xukuumaddii waagi hore jiray ee dowladdii maxaa siyaad bare jaale maxaa siyaad bare inay kala fakadeen ciidanka runmiya markii hadda laga hadlo dib loo soo celiyo in sidoo kale hadda ay kala fakadeen waa wax ay keeneen mas-uuliyiinta markaa u sarreeya ay keeneen mas-uuliyiinta u sarreeya marka ay keeneen ee usii madax baneeyeen mas-uuliyiinta markaa ka sarreysa ee usii madax baneeyeen waa silsilad shabakad isku xirnayd maxaa ugu weyn oo kalifi kara in ciidanku kala daataan waxaa kalifi kara ciidan dal dibadda kusoo tababartay oo aad u soo dhibaatooday oo marxalado badan oo xaalado badan soo maray kow ciidanku way xaq ama nidaam ama system u lahaayeen horta ma arag systemkii la rabay in looga faa'iidaystana loogama dhaqmin ee systemku raacan baa la rabay in looga faa'iidaysto nin walba waa ka go'nayd in uu muxuu ahaye dalkiisa iyo dadkiisa anfaco laakiin ahdaaf gaara iyo system gaara ee dana gaara ee dadi wataan in aad ku shaqayso ama ay ahaan ugu shaqayso waxaa kuu dhaantaa adiga oo dalkaaga ama shacabnimo ku jooga ama dalkaaga meesi dalkaa soomaaliyeed waa weyn yahay markii meesi aad heli kadho in muxuu ahaye aad ugu shaqayso cilmigaaga iyo aqoontaada meesi markaa lagu soo dhowey inaad ugu shaqayn karto inaad kaga shaqayso ma jirtaa in ciidanku ay la yimaadeen dhaqan ah inaysan aqoonsanayn dowladda inaysan aqoonsanayn madaxda waddanka inay yihiin ciidan fallaaga ah oo la gadooday farmaajo ciidanka hadda kuu sheegaya waxaa ka mid ahaa ciidanka mas-uuliyiinta markaa ahdaafta gaarkaa watay dadka la midka ahaa baa ka mid ahaa ciidan noocaas way dhacday maxay sameeyeen de markii horta de muxuu ahaayey dalka dibaddiisa aan joogno horta waxaa jirdhay mar aanu de dalka xaggii aan joognay iyo madaxweynaha doorashooyinka iyo waxaa la isku hayey mar waxaa jirdhay la yiri waa tegaysaan oo naloo soo dedejiyey oo haddana annagoo diyaar u ah inaan dalkayga soo aadno nala baajiyey madaxweyneha markaa xukuumadda ay ka degay in muxuu ahaayey nala keeno soomaaliya kadib markaa la hakiyey
arrimaha mas-uuliyiinta markaa u sarreysa ay u baajiyeen in la reebo baajiday tan aan kuu sheegayana ciidanka muxuu ahayey madaxweyne farmaajo ciidanku muxuu ahayey 100% dowladnimada nabadii nolol waa laga dhaadhiciyey waana lagu shubay ciidanka sibinaar ahaan baa loogu shubay inay dowlad kale jirin ama madaxweyne kale oo dalka wax ka bedeli karo inuusan jirin ciidan kale ka horreeyay aysan jirin ciidan kale in aanu nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed abuurkeeda koowaad in aanu nahay hadda khudbadaha madaxweyne xasan sheekh uu leeyahay inaad dhageysato in la dhageysto in kala maqan in aad u dhageysatana garan maayo uu leeyahay waxa tiin ciidanka abuurka dowladda Soomaaliyeed baa tiin ciidan waxa jira intaana anagu ciidanimo ku beerin waxa jira dad ciidan ah oo dhimanayay oo rafaadayay oo frimaha jooga oo meel walba jooga iyaga naftooda dalka xuquuq bay ku leeyihiin marka taariikhdii ka horreysay ma jirto marka taariikhdii ka horreysay oo waa la tirtiray marka idinka ah unugii lagu bilaabay ciidanka dalka ciidanka xoogga dalka idinka ah because dadkan oo dad ku soo naafoobay oo dalka u soo shaqeeyay xuquuqda nidaamkooda waa la kasaray aad inta jidho oo joogtana waxa la yiri marka idinku dalkii tagtaan iyagana waa la keeni doonaa dalka Eritrea lagu soo xiran doonaa nin kasto ciidan oo dhaata ciidan ku jira oo Soomaaliya ka shaqeynaya lama kala doonaa ka tirsanaado in la keeni doono dalka Eritrea ee noqdaan ciidan ka wada imanaya dalka Eritrea ama nidaam ciidanka dalka Eritrea u degsan ay noqon doonaan ciidankii la soo celiyay ee qaybaha kala duwan lahaa waad sheegtay qaar waliba qaab daran ay ku jiraan oo qatar ah oo ay ku jiraan kooxaha loo tababaray inay dadka dilaan qaarajiyaan oo bistoolada lagu tababaray iyo ciidamadii kala duwanaa ma la maamuli waayo marka dalku soo noqdeen horta ciidanka 100% waxa ay ciidan u adeecsan dadka sida gurracan u adeegsanaya ciidanka jeejeeda la yiraahdo aadna attack waxay ugu hayeen ciidanka iyaga markaa dhigooda oo kamid ka la tababarka waxay ku hayeen lid oo lidka ay ku hayeen waxa kamid ahaa iyaga muxuu hayay awoodda buuxda waxa siiyay mas'uulkii markaa u sareeyay oo danaha gaarka ah rabay inuu ugu shaqeysto wuxuuna awood buuxda u siiyay askarigii markaa danaha gaarka ah isagoo wato jeejeeda nimanka la yiraahdo oo ka dhaadhiciyay askarigii ciidanka kamid ah oo ka soo horjeesta in meeshii la arko aragtida lagu toogto baa kamid ahayd waxyaalaha ciidanka baqdinta ku saabartana taas ahayd intii la hor keenay baa ciidanka loogu khudbeeyey marka maxaa keenay ciidanka inay kala farxadaan ma la maamuli waayo maamul xumo waa jidhay oo mas'uulka markaa ugu sarreeya oo ugu wacan yahay in ciidan sideedaba hoggaankiisa xumaada ciidan ma xumaado hoggaanka ugu sarreeya markaa ciidanka baa wuxuu ku waday ciidanka inuu sistemiyo isagu rabo jeebkiisa inuu ku socodsiiyo ama uu dalka ku qabsado ma la dhihi karaa dhankiina haddii laydin weydiiyo ka waran ma khatar amni oo soo korortay noqdeen ciidankii laga keenay Eritrea markaad fiiriso dhaqankooda iyo gadoodka ay sameynayeen ciidanku waxay ka gadoodeen horta 100% ciidanku waxay ka gadoodeen sida ay sugayeen iyo sida ay la kulmeen baa islahayn waa laba mid oo kala dheer ay maxay kala ahayn ciidanku waxay sugayeen waa ciidan muddo dheer maqnaa dalkooda ka maqnaa in lagu soo dhaweeyo nidaam wanaagsan iyo system wanaagsan lagu soo dhaweeyo kow markii waxa ugu la yaabka badnaa waxa kamid ahaa ciidan markii saa dalkooda uga soo degeen waxaan wadanay kaba koonga iyo tuutihii markii xoriyooyinka Soomaaliya nolo ku diyaariyay aan saa u nimay waxyaalaha ugu la yaabka nolo ku diyaariyay waxa kamid ahaa xoriyooyin sidooda ah oo agab systemka ciidan lahaan jiray lagu soo dhaweyn jiray ciidan muddo dheer soo rafaaday ahaa in lagu soo dhaweeyo ciidanka niyadda ka sii diray waxa kamid ahaa ciidankii saa u yimi oo xoradii la keenay inaysan wax jiifo u oolin wax agaba u oolin ay noqoto go'i Eritrea naga soo siiyay aan soolooyinka halka ku soo xirnay inuu nin walba ku seexdo ma ay waayin dowladdu xuquuq markaa ciidanka lagu soo dhaweeyo laakiin waa nidaam dad gaar ah wateen oo ay dhaheen muxuu hayay ciidankan muxuu hayay waa ciidan la rabo system gaar ah in loo adeegsado lama rabo system ciidankan in la siiyo nidaamkii xuquuq ciidan lahaan jiray in la siiyo lama rabo waa ciidan rabo in si gaar ah loo adeegsado oo dhaqankii Eritrea yani Soomaaliya laga socodsiiyo marka sida Eritrea ugu nooleedeen say ahayd marka isla sidii la rabaa ku noolaan isla sidii la rabaa inuu ku noolaan maxaad filaysan marka nolol ka duwan nolosha Eritrea nolol ka duwan in lagu noolaado maadaama ciidankii dalkii aad ay ugu soo tababarteen ay rabaan inay wax ka bedelaan waalidiintood aysan arag dad waxa jira iyagoo meesha jooga waalidiintood ay dhinteen dad waxa jira muxuu ahaayay xaggii iyadoo jooga ku soo naafoobay oo waalidiinta waxa jira iyagoo sugaya ciidan bid qaba walashooda iyo bid qaba inay u imanayaan qaarkood naafo noqdeen oo isla Soomaalidii sida gaarka aan ku sheegay magacyada gaarka ku hawlgalay ee dileen ama jirdilkii lagu naafeeyay ama maxay aheeday lagu diray ama macallimiinta Eritreanka markaa ay dileen rasaas ku fureen ay laayeen baa jiray marka noloshii Eritrea mid lamid ah kala kulantay heer xataa waxa la keenay wixii aan ka cuni jirnay Eritrea in diyaarada lagu soo qaado oo la daba keenay nala ka daba keeno maxaa keenay cuntadaas cuntada waxa kamid ah waxyaalahan ariga la siiyo baasha kamid ahayd misirta baal misirta la yiraahdo waa carbohydrate weeye waa awoodda kaliya shaqo lagu qaban karo bas taasina cuntaan inaa cunno oo Soomaaliya adoo dalkaaga jooga
muhim weeye markaad dal shisheeye joogto garaamaad iyo system inaad ka hadasho xaq uma lihid dowlad dhan baa matalaysaa magac sumcad soomaaliyeed baa wadataa haddii aad gaajaysan tahay haddii aad rafaadsan tahay waa inaad qarsataa because waxa wadataa sumcaddii soomaalida oo dhan baa wadataa laakiin dalkaaga adoo yimi in haddana lagu soo codsiiyo Eritrea wixii ka jiray waa dad wata arrimo gaara iyo sistemyo gaara iyo ajando gaara inay ciidankan ku dhaqaan see isku qabanaysaa ninkii cadowgiina koobaad ahaa xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradkii dalka inay dowlad idiin noqdaan oo aad ciidan u noqotaan markaa waddan kusoo noqoteen horta hadalhaynta ugu badan waxa weeye horta ciidanku 100% horta xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh horta ciidanku waa taageersan yahay 100% because dhowr nin aan wacayaan wareystay baa jira waxa ku leeyahay waa ninkii madaxweyne farmaajo aniga haddii uu dalka ii qaado ii tababaray uu dalka dibadda geeyey oo leegeeyey in aan soo tababarto because systemkii ama nidaamkii xuquuqda aan ka lahaa uma uusan samayn dad wuxuu iiga tegey ajando gaara iyo nidaam gaara wata madaxweyne xasan sheekhna aad buu ugu mahadsan yahay waa ninkii waa madaxweynihii markii saa loo doortay in uu dhaqaaq soo sameeyo oo noo imaado oo noo xog waraysto ciidankii dhex imaado oo ciidankii ballanqaadiyo noo sameeyo inuu dalkii noo celin doono wejiyo cusub oo wejigii koowaad la soo qaado wejigii labaad oo ciidanka ahaa muxuu ahaye moraaliyan uu uga hadlo uu dhaho idinkana waa idin qaadi doonaa dalkiina idinku celin doonaa marka isagu madaxweyne inuu yahay way aqbalayeen way aqbalsanayeen laakiin laftiisa markii ay yimaadeen maamul xumay dareemeen markii uu yimaadeen ciidankiina waxay ka dareemeen maamul xumo iyo xuquuqdii ay lahaayeen ee waayeen bay ka dareemeen iyo muxuu ahaye mas-uuliyiin gaara uu u soo adeegsaday uu yiri ciidanka idinkaa xukuma oo la rabay sidii la rabay in loo xukumo ay ku soo darsadeen gacan ee iyagu wataan ee ka duwan gacanta maamulka dadkii idin maamulayay markaad joogteen Eritrea ee tacadiyada idin geystay ee ka tirsanaa dowladda markaad xamar timaadeen misla iyagii aadna madaxdii lahaa isla iyagii oo ay ka mid yihiin dad dilay ciidanka ka mid ah dilay oo jirdil si ugu geysanayeen ku dilay sidii ul loola dhacayay afka intii laga xiray ul loola dhacay ee naftu ka baxday kuwa gacan ku dhiiglayaal baa jira oo rag ciidanka dalka Eritrea ku tababaranayay soo dilay oo haddana rabo ciidanka in la hor keeno oo loo dhigo mas-uul adaa ciidankii maamula waay jaabirow ciidanka tababarka intaa la eg helay oo noocyada kala duwan ku tababartay ee tirada intaa la eg leh shabaabna aan cadow u ahayn nidaamka lagu dhisay qaabka lagu dhisayna aaban ahaynba dowlad Soomaaliyeed inay difaacaan see lagu aamini karaa bay kula tahay dadka Soomaalida hadda maqlaya warkeena see ku aamini karaan dadka noocaas loo soo tababaro wadankii jooga dadka nooca loo soo tababaray oo wadankii jooga dadka horta ciidankaas 100% horta waa ciidan dadkooda wax ka bedeli kara haddii waxa weeye laga saaro dadka arrimaha gaarka ah wata oo rabo ciidanka arrimaha gaarka ah loo adeegsanayo haddii ay ka baxdo ciidankaas waa ciidan wax bedeli kara dalkooda iyo dadkoodana waa ciidan wax ku soo kordhin kara saan anu aaminsanahay ani ahaanteed wax khatara oo aad ka dareemayso ma jirto wax khatara aan sooran karo ciidankaas dalka wax khatara bay maxay ku soo kordhin karaan ama ku samayn karaan ma aaminsanin haddii muxuu ahayday laga saaro dadka ajandayaasha ama nidaamka gaarka ah wato oo raba ciidanka inuu adeegsadaan haddii ay baxsadeen oo ay kala yaaceen soo dad kale ajandayaal kale kama faa'iideysan karaan macquul waa imanaysaa waa ciidan tayeysan qalab habaysan maskax dhinac walba ka dhisan tababar ajri nooc leh bad ma tirin karo marka aad iyo nooc loo soo tababaray haddii saa aad sheegteen ay aad isku mabda ahaydeen al-shabaab suuragal ma tahay qaar badan oo ka mid ah al-shabaab u galaan macquul way u galeen waxa jira yar ciidanka ka mid ahaa oo anigu aan weliba mas'uul ahaa weliba ciidanka dhalinyarada aadka ugu yar buu ka mid ahaa markii General Gordon nimi wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay oo baxsada qorigiisii booshkiisii wixiisii oo dhan waa qaatay wuxuu iska soo dhiibay wuxuu isu dhiibay argagixisada al-shabaab buu isku dhiibay al-shabaab hadduu isku dhiibana waxa laga wareystay idaacadda ugu weyn ee Daaru Furqaan uu ku hadlay hadda codkiisa media waa yaala isagoo la wareysanayo waa yaala hadda deel raadiyo waa la helaya dadkana waa wada dhageystay muxuu u galay al-shabaab buuti muxuu u galay sabab wuxuu u galay muxuu ahaayey markiisii hore muxuu ahaayey horta waa nin askariga oo lasoo tababaray markiisii hore baa laga yaabaa in ay ku soo darsadeen al-shabaab in ay dad ay ku soo darsadeen ciidanka inay ku dhex jireen baa laga yaabaa oo markii hore ba ahaaba inay markiisii hore ahaa ay ku soo darsadeen waana laga helay dad ay ku soo darsadeen intaad gudaha joogteen dad shabaab in la ka helay ma jirtaa ha way jirtaa maxaa lagu sameeyay dadkaas dadkii hadda waa la keenay waa la rikaateeyey waxaa lagu rikaateeyey dadka al-shabaabnimo lagu eedeeyey waxaa lagu rikaateeyey xukuumaddu wixii ay rabto inay u samayso hadday u samayn weydana iyagaa la dilaya maxaa laga wadaa rakaato yacni jacaylkooda wixii la rabo in shaqadii la rabo loo dirsado
oo aysan diidi karin aysan diidi karin because waa black list dad ku jira oo yani argagixisnimo lagu soo eedeeyey maxaa lagu laguna sameeyaa helay. say saa u sameeyaan maxaa lagu sameeyaa yani in loo adeegsado markii ama ciidanka dhexdiisa ha ahaado ama hadda waxaan maqlayayba wasaaradda gaashaandhigga la dejiyey dadka ciidanka dadkii nooca wasaaradda gaashaandhigga la dejiyey marka dad shabaab ka mid ahaa si ay ula shaqeeyaan ciidanka dowladda si ay ula shaqeeyaan si ay dowladdu ugu shaqaysato dadka dowladda ah mas-uuliyadda ugu sarreeya wixii iyagu rabaan in ay ugu qabtaan ama dad soo dila ha dhahaan ama nidaamka kale oo khaldan ha u isticmaalaan sida ay iyagu rabaan inay u sameeyaan markaa way ka badbaadayaan xabsina geymayaan wax kale ay ku sameynayaan ma jirto mana dilayaan haddii waxa ay rabaan ay u fuliyaan. adigu maanta waa hadashay idaacadaad ka hadashay warbixinaad sheegtay ammaankaagii aad uga baqaysaa oo khatar kugu ah ammaankay waxaan uga baqayaa oo khatar igu ah mas-uuliyiinta markaa ugu sarreeyey oo ugu hanjabi jiray ciidanka meel walba iyo meel kasta aad joogtaan maxay aheeday iga badbaadi maysaan. waa jiraan dad hadda saa media uga hadlay oo ciidankayga ka mid ah raggaan garanayno oo la dilay dowladduna muxuu ahaye naftigooda dadkii ugu sarreeyey oo ciidanka markaa maamulayey maadaama ay ciidanka ugu hanjabeen ninkii anagu danta gaarka aan wadano ninkii ka hadla ama caddeeya naga badbaadi maayo oo waa dilayna. waay raggiinnii marka saas ah haddii aad gobolladii gasheen oo maamul goboleedyadii dalka aad tagteen oo qaar badan ay meelo kala duwan oo waddanka ka mid ay joogaan ma iska warqabtaan oo hadda ma isku xiran tihiin wax waran ma idin dhex maraa ciidamada dadka kuwii baxsaday boqolkiiba boqol kama warhayo muxuu ahayey taana kaagama warrami karo laakiin ciidanka inta muxuu ahayey deegaan ahaan hadda joogta muxuu ahayey deegaanka anigu aan joogto oo kale boqolkiiba boqol ciidanka muxuu ahayey waa ciidan aan ka warhayo aan xaaladooda. waay jaabir maxaa is leedahay marka nagu kordhin leed maxaan ka tagnay oo ka mid a waxyaabaha is leedahay nagu kordhi waraysiga aad ku sheegi karto waraysiga waxaa ka mid ah haddeer waxyaalaha aan kugu kordhin karo waxaa ka mid ah ciidanka in ciidanka muxuu ahayey sidii la rabay dalkooda iyo dadkooda ay ugu shaqayn lahaayeen in ay ugu shaqeeyaan haddii ay suuragal tahay lana helo dad caadil ah oo dalka iyo dadka sidii la rabay ugu shaqaynaya in ay ciidanka iyaguna ula shaqeeyaan nin kasta oo eritrea kusoo tababartay halkana waxaan uga sheegayaa marnaba ha ka ogolaa nin dan gaara wata in cilmigaaga iyo arrimahaaga muxuu ahayey uu kaga faa'iidaysto liannahu haddii la helayo dad caadil ah oo muxuu ahayey dalka iyo dadka u shaqaynaya in lala shaqeeyo awaamiirtoodana loo hogaansanaado dalkana cilmiga iyo sistamyada kala duwan aanu baranay in wax lagaga bedelo. maadaama sida la sheegay dibadda markaad tagteen qabyaaladda laydinka dhaqayay gudaha waddanka marka soo laabateen wax qabyaalada ma aragteen nidaamka si u shaqaynayo way jirtay dad waxaa jirtay mas-uula oo deegaamo badan kala duwan kasoo jeeda oo mas-uulo markaa horjoogay mas-uulo badan ahaa oo iyagoo mas-uul ahaa muxuu ahayey markaa dad aan mas-uulnimo ama horjoognimo ama system nidaam aan soo marin markaa muxuu ahayey lagu soo dhiso ama kor la geeyo iyagana muxuu ahayey xabsi la geliyo way jirtay oo la qabyaaladeeyo way jirtay aad ba u badneed xaaladaasina waa xaaladda aadka muxuu ahayey ciidanka u kala disiyey bay ka mid ahay haddii aan xaaladda iyada aan dul tago ama aan ka hadlo waxyaalaha ciidanka kala diray bay ka mid ahay in ciidankii muxuu ahayey qabyaalad lagu abuuro waxa ku abuurayana waxa weeye waa mas-uuliyada markaa ugu sarreeya markii dad gaarana muxuu ahayey la yiraahdo madaxa la saarsado dad gaarana muxuu ahayey in la ataagareeyo ama la yiraahdo waa personal attacka dadka muxuu ahayey lidka nagu ah systemka aan wadano waa dadka lidka ku ah inna xabsi underground la geliyo inna maxay aheeday muxuu ahayey lagu eedeeyo kiisas kala duwan ama kacdoon ciidan ama program ciidan ama sistemyo ciidan loo adeegsado ama kiisaska loo adeegsado. khatarta hadda muuqata aad sheegi karto ah in ciidankaas khatar ku ah oo waddan ka jirta gaar ahaan maamulka dowladda ee aad dhihi lahayd waxaa laga bedelo maxaa ka mid a waxaa ka mid a mas-uuliyada ugu sarreeya in laga bedelo ciidankaasi hadday helaan mas-uul caadila oo muxuu ahayey systemka iyo nidaamka ay usoo tababarteen ku hogaaminaya oo nadiifa waa ciidan dalka wax ka bedeli kara waxna kusoo kordhin kara xariye ma kusoo noqonaysaa waa ciidan wax ka bedeli kara xariye ma kusoo noqonaysaa haddii anaga ahaan deegaanada kala duwan baa joogada taa horta muxuu ahay waxaan ugu soo noqon karin waxaa jira nidaamo muxuu ahayey qabiilaysanaya ciidanka lagu kala dilay markii aan kuleeyahay dad caadil ah waxaa ka wadaa muxuu ahayey in la heli karo dad muxuu ahayey caadil ah oo ciidan muxuu ahayey dhexdiisa kala gur ciidan ama system ciidan u adeegsan karin oo ciidankii u arkay inay yihiin ciidan isku duuban ama ciidankii isku soo celin kara ama ciidankii ka saari karaa tafraaruqa ciidanka dadka dhex geliyey. aad u mahadsan tahay jaabir
cabdixakiin muuse ayuu ahaa oo ka mid ahaa ciidamadii ka soo noqday waddanka Eritrea waan waraysiga ka qaadaynay guud ahaan waraysigan inta ayuu ku dhan yahay oo ku mahadsantahay daawashada barnaamijkan intaan mar kale kulmi doono waxaan leenahay nabadgalo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa Ha Noolaato ujeedkeenu waa kor u qaadida wacyiga iyo wacaalka bulshada Soomaalida ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wixii la soo maray ma xallin karo waxa taagan mana fahmi karo waxa soo socda mahadsanid